kulanti wacan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararka ugu waaweyn ee Soomaaliya caalamka ee channelkeena qodobadan ku helan waxaa ka mid noqon doona khasaarihii ugu badnaa ayaa al-shabaab lagu gaarsiiyay dagaalkii ka dhacay degmada Buulaburti ee gobolka Hiiraan xildhibaano ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka siyaasiyiin ka soo jeeda gobolka Hiiraan ayaana si kulul uga hadlay oo ka falceliyay khasaarahaasi markaasi lagu gaarsiiyay al-shabaab in ka badan 200 oo dagaalyahanno al-shabaab ah ayaa lagu diray weerarkaasi waa soo gudbi doonaa waxaa kaloo daawo doontaan wararkii ugu dambeeyay ciidamada admis madaafiic ayaa lagu weeraray xere ay ku sugnaayeen oo ku taala degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe xogihii baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya Cabdikariim Buuxna wuxuu faahfaahin ka bixiyay lacagihii markaasi laga qaaday musharaxiinta oo lunsaday sababta uu xilligan u faahfaahiyay mar uu xilliga ka degay ayaan idin soo gudbi doonaa wax isku soo beegay waxaa kaloo daawo doontaan beesha abgaal oo hub aruursiga ugu dambeysay ku jirta si al-shabaab ugu saaraan gobolka Shabeellaha Dhexe inkii dambe ee shalay ayayna markaas ka baxeen Muqdisho waa daawo doontaan dhowrtiska weli ugu sawirta beelaha abgaal oo weli halkeedii ka sii socda iyo waxba dhaqdhaqaaq dagaal aan soconin oo baasan ku faahfaahin doonaa warar kale oo caalamka diblomaasiyadda saaxiibaha hadda noqon doonta marka hore subscribe noo saar gambalkana furno si shaqeeya saaxiibiin markasta jooga idinku commentiga like-na inoo riibaya aad bad u maasantiin wararka al-shabaab ayaan ku bilaabeynaa xog cusub ayaa laga helayaa khasaaraha al-shabaab ay kala kulmeen dagaal shalay ka dhacay deegaanka magaciisayda ay ku leeyihiin deegaanka lagu magacaabo Jicbu oo 30 kiiloomitir dhanka waqooyi kaga beegan degmada Buulaburti ee gobolka Hiiraan warbaahinta dowladda ayaa warisay in ciidanka qaranka oo gacanta ka helaya dadka deegaanka ay hareeyeen maleeshiyaadkii oo ku sugnaa goob webiga jiinkiisa ah oo ay doonayeen inay markaasi ka talaabaan laguna laayay halkaas sida hadalka u dhageen saraakiisha warbaahinta dowladda la hashay maxamed shiino oo ah gudoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maareynta degmada Buulaburti ayaa warbaahinta u sheegay in ku dhawaad 100 ka tirsan al-shabaab ay ku dileen halka qaar kalena ay isu soo dhiibeen halka intii kalena ay hartaan ay ciidanka ay hareerayeen warbaahinta dowladda ayaa khasaaraha al-shabaab halka ku gaarsiisay ku sheegtay in ka badan 200 oo markaasi al-shabaab ah al-shabaab ayaa damacooda ahaa inay kala gooyaan labada magaalo ee Beledweyne iyo Buulaburti sida ay xog ku bixiyeen saraakiisha ciidanka dowladda sida wararka ay sheegeen maamulka deegaanka ayaa war laga helay waxa ay sheegeen in al-shabaab badan markaasi ay doonayeen in halkaas ay ku go'doomiyaan dadka shacabka hase yeeshee ayaga ay dab xooggan la kulmeen ciidanka dowladda ayaa soo kala gurmad xoojin ah u diray halkaas kuwa oo kooxda u hareeriyay deegaanka Jicbu kadibna uu dagaal culus ka dhacay waa khasaarihii ugu badnaa baa dilay al-shabaab halkaasi ka soo gaara tan iyo dagaaladii markaas ka dhacay gobolada dalka Hiiraan oo markaas khasaaro culus al-shabaab ugu soo gaarsiiyay isla wararkaasna ku jirnay xildhibaano ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka iyo xildhibaano hore oo Hiiraan ah ayaa ka falceliyay khasaaraha al-shabaab lagu gaarsiiyay dagaalka ka dhacay deegaanka Jicbu ee degmada Buulaburti 30 kiiloomitir u jira waxaana markaas ka mid ah dadka ka hadlay Cabdullaahi Godax Barre wasiirka hore waxbarashada xildhibaan hore ayaa wuxuu yiri waxaan u hambalyeeyaa ciidanka xoogga dalka iyo macuusley guusha weyn ka gaareen deegaanka Jicbu ee hoos degmada Buulaburti mujrimiinta oo in ka badan 500 oo nin markaas ku soo weeraray deegaanka Jicbu ayaa dab xooggan lagu gaarsiiyay qaarna la dilay qaarna la dhaawacay halka kuwa kalena nolosha lagu qabtay kuwa qaarkoodna go'doon markaasi lagu geliyay deegaankaas Jicbu waasuu hadal ku dhigay Godax Barre dhanka kale macallin wasna golaha shacabka ka mid ah ayaa sheegay in ujeedka shabaabku ahaa inay cagta mariyaan saldhigga ciidamada balse ay ku goobeen waxa uu qorshoodu ahaa inay cagta mariyaan saldhigga ciidamada wadajirka balse si la yaqaan bay ciidamada markaas u guteen waajibaadkoodii halkaasina waxa ay dab xooggan kala kulmeen ciidankii dowladda ayuu yiri macallimu taliyaasha ciidamada ayaa markaas waxa ay amreen in la go'doomiyo kaliya si aan fursad ugu helin oo ay u tallaabaan dhanka galbeed waxa ay dan u arkeen in la isku banayso kadibna ay helaan dooman ay markaas ku gudbaan kuna qaataan dhaawaca iyo meedka soo gaaray aad buu u baaxad weyn yahay yiri xildhibaan Maxamed Ibraahim Macallimu dagaalka al-shabaab iyo ciidamada dowladda federaalka ayaana weli halkiisa ka sii socda ayadoona dhinacyadu ay weli guul ay kala sheeganayaan qaybihii hore ayaa daawanaysan channelkeena daawadayaal haddii aad nagu cusubtahay subscribe noo saar gambalkana furno si share gareeya saaxiibiin meel kasta jooga idinku commentiga like inoo reebaya aad baad u maasantahay hadii jeer sida aad nala socotaan markaana xogihii guud ee golaha shacabka baarlamaanka Cabdikariim Buux oo 10 sano kadib faarujiyay ama wareejiyay xilkaas kadib markii uu socodsiray dhawaan ayaa sharxay halka ay ku dambeeyaan lacagihii laga aruuriyay musharaxiintii xildoonka ahayd ee doorashada waxaa xafladii xilwareejinta ugu faa'iideystay inuu ka jawaabo eedamo laga faafiyay oo la xiriira in hoggaanka golaha shacabka uu lunsaday lacagihii markaas laga aruuriyay musharaxiinta
wuxuu sheegay in lacagahaas toos loogu shubay khasnada dowladda islamarkaana loo maamulay si waafaqsan sharciga maaliyadda dalka yaan sharafta baarlamaanka meel loogu dhicin. waxaan arkayay dad soo qoriya malaayiin dollar oo xilligii doorashada la aruuriyay ayaa la lunsay ayuu yiri buuxa. wuxuu intaas ku daray 10 sano ayaan ka soo shaqaynayay hay'adda sharci dejinta waana halka laga ilaaliyo sharciga dalka wax musuq ahna kama dhex arkin. lacagtaas waxaa laga maamulay oo lagu shubay khasnada dowladda. sidoo kale cabdikariim buux ayaa sheegay in lacagihii laga aruurinayo musharaxiinta xilligii doorashada ay gaarayeen 1 milyan 300 hadda waxaa ka dambeeya buri 100,000 oo loo qorsheeyay in la siiyo shaqaalihii ka shaqaynayay doorashada waxaana gacanta ku haysa wasaaradda maaliyadda ayuu hadalkiisa ugu sii daray. cabdikariim buux ayaa dhowaan iska casay xilka xogaha guud ee golaha shacabka isagoo aan shaacin sababta waxaana xilkaas uu ku wareejiyey cabdiraxmaan jabiir oo gudoomiye aadan madoobe uu xilkaas u magacaabaya. beesha abgaalna waxa ay weli wadaa ugu sabartii iyo dhaqdhaqaaqii boojada ahaa ee ka dhanka al-shabaab si halkaas ay dagaal ula galaan gobolka shabeellaha dhexe. beesha mudulood oo markaas beelaha abgaal ka mid ah ayaa waxa ay ka baxeen magaalada muqdisho shalay gelinkii dambe ayagoo soo bandhigay hub saraakiil gaadiidka noocyadiisa kala duwan saraakiil hogaaminaysa xildhibaano waxaana warbaahinta ay kula hadleen duleedka magaalada muqdisho. waxay sheegeen in ay qorsheynayaan in maalmo gudahood lagu xoreeyo muqdisho ilaa ay xardheer iyagoo cagta marinaya gib ahaanba deegaanada ay al-shabaab ay ka joogto dhulka shabeelle ee galmudug. ciidanka la sagootiyey ayaa wata hub iyo gaadiid dagaal oo aad u badan waxaana kasii horreeyey ciidan kale oo meel lasoo dhaafay ee la isku geeyey degmada cadale ee gobolka shabeellaha dhexe. beesha mudulood ayaa wada abaabulkii ugu cuslaa oo ka dhanaa al-shabaab maadaama inta badan gobolka hiiraan iyo qaybo badan oo gobolka gaduud kacdoon shacab oo loogu xoreynaya al-shabaab uu ka socda. ilaa 200 oo gaadiid dagaalka ayaa ku sugan cadale waxaana hadda deegaankaasi ku wajahan tiro kale oo intaasi ku dhow. maalmaha soo socdan waxaa lagu wadaa in howlgalladan ay ka bilowdaan dhulka al-shabaab ay ka joogaan gobolka shabeellaha dhexe. inkasta oo inta badan beeshan lagu eedeeyo ama beelahan lagu eedeeyaba in aysan daacad ka hayn dagaalka oo ay doonayaan oo keliya ugu sabir soo bandhigista hub kala duwan saraakiishooda xildhibaanadooda oo inta badan warbaahinta kuwa 90 ama markaa ay yihiin kuwa soo taagan waxba aan ka qaban dagaalada markaa socda ayagoona inta badan sameynaya dowlatuska in markaas ay waa soconaa hana la arkay tahay. weli lama arag beelaha dagaalka galay oo xawaadlo ugu tunka weyn in ay soo sabiraan si yeeshee waxa ay ka muuqataa xawaadlo waxay tahay waa dagaalka ka go'naanshaha oo ay kula jiraan dagaalamayaasha al-shabaab. hase yeeshee abgaal beelahooda weli ma ka haysan ka dhabeen dagaalka oo ugu sabirtii ayay weli wadaan ayay leeyihiin dadka inta badan ka faalooda siyaasadda iyo weliba kuwa ku jeexjeexaya baraha bulshada ayaana meelaha ugu badan ah ee wararkooda markaasi lagu hadalhayo. wararka arrimaha gobolka ayaan aadaynahay qaramada midoobay waxa ay ku baaqday in la baaro tahriibiyaal markaas ku dhintay Liibiya. howlgalka qaramada midoobay ee dalka Liibiya ayaa axadii wuxuu cambaaray dilkii ugu fooshumaa ee loo geysto 15 tahriibiyaal oo ka dhacay meel u dhow xeebaha magaalada Sabrat ee dalka Liibiya iyagoo oo ku eedeeyay dilkaas inay ka dambeeyeen kooxo markaasi muqallisiin ah ama dalaalinta wax tahriibiya. qaramada midoobay ayaa dalbanaysa in kooxaha falkaas ka dambeeyay cadaaladda markaasi la hortago. meydkan ayaa subaxnimadii jimcaha laga helay meel xeeb ah waxaana intooda badan ay ku dhinteen dooni gubatay sida ay sheegeen howlgalka qaramada midoobay ee Liibiya bisha cas ee isna dalkaasi ka howlgala. iyadoo oo weli lagu mashquulsan yahay in la ogaado xaaladda dhabta ah ayaa haddana wararka hordhaca waxa ay sheegayaan in dilka uu ka dhashay isku dhac dhex maray kooxaha wax tahriibiya ayaa lagu yidhi warbaahinta ka soo baxday xafiiska qaramada midoobay ee Liibiya. waxay ku boorisay mas-uuliyiinta dalka Liibiya inay si degdeg ah u bilaabaan baaritaanka madax bannaan oo daahfurnaan ah si cadaalad loo horgalo dhammaanba dambiilayaasha ku lug lahaa falka foosha xun ee dadkaasi loo geystay. Liibiya ayaa ah marin muhiim u ah si qarsoodi ah loogu tahriibo dadka halkaasina dhibaato xoog leh ay kala kulmaan dadka tahriibiyaasha. wararkii waaweyn Soomaaliya caalamkana waa inta daawada kala socda channelkeena ilmaamina subscribe inta balkan afurtan oo si sheegalaysan saaxiibadii markii joogan idinku kuma tiga like-na inuu waad ku mahadsantihiin la socoshada had iyo wararkeena halkaan aan ku soo gudbino.